Way soo dhawaada saaxiibayaal waxaan rabaa inaan idin la wadaago xogta wararkii ugu dambeeyay deegaanada Jubbaland iyo waliba qorshaha abaabul ee ka dhan ah ee labada dhinac markaas ay kala wadaan iyadoo markaas maamulka Jubbaland talaabooyin kale ka duwan kuwii hore ee ka wada deegaanadaasi iyo waliba sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland oo khudbad weyn u jeediyay iyo waliba soo kale yoolkiisa ama hadafkiisa ku aadan ugu hadlay taasi oona saacadihii ugu dambeeyay si weyn baraha bulshada u haystay iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyayba si weyn markaas warbaahinta ugu maqana laakiinse mar kale uu arkay in dhammaan warbaahinta noocyada kala duwan si weyn u hadalada uu dib ugu soo laabtay isagoona mowqifkiisa ku aadan u caday hadaba muxuu ka yiri khilaafka culus ee dawladda Soomaaliya iyo waliba sidoo kale maamulka Jubbaland ee xoogaysanay muddooyinkii ugu dambeeyay xogtaas ayaa rabaa in halka kugu la wadaago haddii ay tahay markii ugu horeysay ee uu markaas ku soo gaaro muuqaalka fadlan like gare share gare meel dhanana gaarsiirtin qaybta hoose faalada commentiga ayaad inagu wadaagi kartaan way soo dhawaada saaxiibayaal maamulka Jubbaland ayaana markaasi saacadihii ugu dambeeyay waxa laga dareemayay abaabul iyo waliba sidoo kale diyaargelin ama howlgelin ciidanka maamulkaasi Jubbaland iyadoo markaasi qorsho sida ay sheegayaan wararku ay yihiin inay markaasi ay tahay xaalad xun oo markaasi kicin karta sansaan dagaaleed waxayna sidoo kale ay ugu digeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo qorshaha iyo waliba sidoo kale abaabulka ka dhanka ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ka wada isagana raas Kamboniyo aageeda taasi oo si weyn markaasi ugu dhaliilayaan markaasi maamulka Jubbaland ay si cad ugu soo horjeedaan muddooyinkii ugu dambeeyay khilaafka maamulka iyo waliba sidoo kale kan dawladda ayaana aad u sii xoogaysanayay iyadoo markaasi labada dhinacba ay si weyn markaasi fariimo iyo waliba qoraallo kala duwan isugu dirayeen taasi oo waqtigan la joogayna si weyn markaasi saameyn ugu yeelatay labada dhinacba waxaana sidoo kale jira warar kale soo baxaya in madaxweynaha maamulkaasi Jubbaland Axmed Maxamed Islaam uu qorshay uu rabay hadda ugu hirgalayo deegaanadaasi taasi oo u muuqata in dhammaan gudoomiyaasha degmooyinka waqtigan la joogay amarkiisa si weyn ay u qaadanayaan waxaana sidoo kale jira in dhawaan markaasi la soo saaray warqad maayarka garoonkaasi markaasi magaalada Kismaayo loo qoray in ahayd in diyaarad aanan laga ogeyn magaalada Kismaayo aysan markaasi garoomada markaasi gobolka aysan ku degi kareen laakiin muddooyinkii ugu dambeeyay saacadihii ugu dambeeyay waxa si weyn garoonka raas Kamboni u gaarayay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed diyaarada ama shirkadooyin wada kuwaasi oo markaasi si habsami leh ugu degaya ama shaqooyinkooda waajibka ee qaranka ay si weyn ugu gudanayeen dhinaca kale Axmed Midoobe ayaa wali ku sii adkaysanaya inuu sii joogi karo kursigaasi inkastoo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi uu tilmaamay sheegayna in haddii Axmed Midoobe la soo xiray isaga aan la soo xiriirin laakiin qorshe kasta ee dawladda markaasi maamulka Jubbaland si weyn markaasi loogu dhisi karo qayb weyn uu ka yahay ama uu adkeenayo ama uu sii xiri karo taasi oo aanan sinna loogu hor istaagi karin ama geeyga Soomaalida gaar ahaan deegaanada Jubbaland oo dhan laga hirgelinayo qorshaha Axmed Midoobe markaasi toos ugu hirgalayo haddaba adigu maxay kula tahay sidees u aragtaa khilaafkan si xoogaysanay oo aanan wali si rasmi ah loo daminin sidees Axmed Midoobe hoos loogu dhigi karaa xaaladiisa dawladda talaabo nooc ah ay u qaadi doontaa bartan qaybta hoose faalada commentiga inagu wadaag